magacay waa Ismaan Yuusuf Axmed waxaan halkan caawa ku fadhiyay oo aan doonayaa anigoo ku hadlaya afka jaaliyada Buuhoodle gobolka Cayn gobolkan Birmingham degan hadda iyo kuwa agagaarkeedaba degan waxaan doonayaa halkan inaan caawa iyo waliba SSC ba waxaan doonayaa halkan caawa inaan ka jawaabo arrintii ahayd in meel walba oo nala raaciyaan raalli ka nahay ama mudug iyo galguduud in la israaciyaa inay sharci tahay arrintaa iyada ah ka jaaliyad ahaan ma waafaqsanin mana nagamana soo yeedhin annagu reer Buuhoodle ahaan nagama soo yeedhin arrintaasi dowladda federaalka ee Soomaaliyeed iyada waxa uu yaala dastuurka Soomaali oo dhan ka dhaxeeya in la dhiso in dib u heshiisiin qaran la sameeyo in Soomaali la isu keeno oo dastuur ay ku qanacsan tahay marka hore la sameeyo dabadeedna Soomaalidu sidii ay isu raacayso iyo sidii ay federalismka ay u sameysanayaanba ay iyagu iska raali geliyaan wax dhexdooda ay raali iskaga yihiin ay isu raacaan annaga afkayaga ma aha wax Soomaali kala kaxaynaya hadii aanu nahay beesha SSC inaanu nidhaahno ama naloogama baraninba waayo SSC iyo deegaanka Buuhoodle waa dhulkii laga aas-aasay ee laga bilaabay midnimadii iyo doonistii Soomaaliyeed iyo la dagaalankii gumaystaha dhulkii laga bilaabay way ilaa haddana waxay u taagan yihiin sidii midnimada Soomaaliyeed iyo Soomaaliland isugu keeni lahaa kuwa khaldan ee la khalday Soomaaliyeed ee waqooyiga degan ee xitaa marar badan lagu soo xadgudbay ee xadgudubka faraha badan lagu haya waanu ilaa hadda waxaanu la daba taagannahay Soomaali baa tiin walaalayaal yaan laydin lumin yaan laydin khaldin soo dhawaada hubka dhiga ogolaada Soomaalinimada ka saxan baanu garab taagannahay ee Soomaaliyeed ka khaldan baanu daba taagannahay si loo soo celin lahaa ka shaqeynaa habeen iyo maalin oo aanan ka seexan gardarro badan oo taan naga soo gaadhay iyo dib badan naga soo gaadhaan u dul qaadana marnaba raalli kama nihin intuu wiil yar iska khudbeeyo wax Soomaali kala kaxaynaya ama godob u kala geenaya in lagaga hadlo oo lagu metelo dadka shacabka iyo deegaanka iyo isagoo metelayo sheeganay marnaba raalli kama nihin dadka gobolada reer mudug iyo galguduud iyo gobolada